siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu mar kale ka hadlay fariimo la isdhaafanayay baraha bulshada kuwaas oo saacadii u dambeysay la dhaxmarayay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu si adag ula hadlay qaar kamid ah culimada Soomaaliyeed oo kala sugan gobolada dalka. Waxa uuna sheegay in uusan marnaba uusan beenin aayadaha Qur'aanka Kariimka haddana uusan mahadceliyo culimadii Soomaaliyeed ee qeybaha bulshada iyo dariiqada kala duwan leh sida culimada duruqa suufiyada علماء حركة الإصلاح علماء قاركود الحركة السلفية كوقا عي واضحنتي أما عدينتي أن كبحيي بوقي لغفوري قطبدي أن كجيدي جرمالكا مركل أيام كل علينيا أنيقوها عبد الرحمن عبدالشكور ورسامة وعانا هين المسلمة دينت إسلام كشان إلا باتنسه برشدي إدالة عشدي تخصص كده كجيري حديثك ليري وحاتي رواد إنكرتي إنه كيالو صحيحينك ما إنكرين حديثك زوحان اعتراف سنهاي إنه يهي حديث صحيحة وكيالا كتبت صحيحة والنبي ينسي الصحيحة لو قوريه وحانوا قوسنا السنة النبي صحيحة مصدر كلمات التشريع هدي اللي يفهمي أنا قصد كي ما أهين حديثك إن إنكره حديث اللي يفهمي إن حديثك إنكراي وفهم كاسيمد وسياق هذا الكيك اللي فهمي مسؤولية داس أنيقا قاعدايو توبدنا إلهي سبحانه وتعالى إسكاله الشخصيات علماء إسكاملها هدي مركب قف كاس دعي ساسا هو دعيه حديث كاس حديث سيحة وأنا مسان إنه سيحي هاي أيان كعلني يا مركلة مرسد حد فرينت لبعض وحيتها أنيقو شارع عدي موقف كيك ومركز تنا عدينا حدنا عدي niman ugu yeeray in ay ka tirsan yahay Ictisaam oo ku kala sugan magaalooyinka Nairobi, Muqdisho iyo Boosaaso ayuu waxa uu sheegay in ay daba dhigteen kuna tilmaameen inuu yahay Shiico marna culmaani marna jaahil oo waxba aqoon isagoona sheegay in laga soo abaabulay culimadaas ee filla Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay ka tirsan xarakada Ictisaam ee laga bilaabo Nairobi si marxamar ilaa Boosaaso marna uu tilmaamay inaan ahay Shiici marna inaan ahay Almaani marna inaan ahay Sandiiqi marna inaan ahay Mu'tazili مرنا إلى هاي جاهل مرنا إلى هاي كلب حمارة وحاصودن معها طريقة مسيحة الدين الإسلام كاكو مجرته ماله وتعالى ملها طريقة الإسلام كالوية قاننا ملها أنا هو عدي موقف كي عدي حديث إنه سيحي هرهم ميسم هدي أسيقر وشاقان أن كسر الله بتي شاقي أي ولي دبتاقيه أنا هو كوحدة سبحانه ويستاك وحدة قسو أبابيلي في الصومالية ومحمد عبد الله فرماجو يتاليها النبي سويد فهذا ياسين يسوء أبابيلين وحكم كان قواسا كانوا وحكم كان عدكين كعباديستا حدنا وحيرها من أيضا الشريعة الإسلام كان خلافي مناهجت دين تدن خلافي حرمدي ديك مسلم كهي آنان حيرينين أي ربان إنه كرسي فضوك والهيان صومالية وقادة رقاسو دين إيه النسيحة ومجيدان عبد الرحمن عبدالشكور وحيكو هايستان رقا حكمك كانت حيو لولنك إيه معارض نمدي تاقيرسيه waxaad ka garanaysaa qodbooyinkooda kambayna ku jiro codka yaana siinin odow raba yoosa in xukumin adoona xukumo laynaya wuxuu ka soo horjeedaa diinta waxa soo dhan waa ku dhuumasho waa ku gabasho culimadaas ictisaama leeyahay taariikhdoodana mar kale faahfaahsan dalkan dhibaatada ka geystayna ka sheekay doona fariinta kale waxa uu dirayaa dawladda Soomaaliya waxaan dhageystay maanta wasiirkeeda warfaafinta wuxuu yiri Xasan Daahir Aways waa nin difaacaya diinta Islaamka go'aanka Soomaalida u deynaya haduu Xasan Daahir yahay diinta difaaca laakiin waxaan halka ka cadeynaya in fadwadii uu iga soo saaray oo banaynta dhiigayga dawladda aysan cambaaraynin Xasan Daahirna u taqaanin diinta difaacayo Soomaaliya dawladdiina waa taasa ninkaas diinta inuu difaacayo u taqaana kumanaan kun oo dadkiina kamid ah dhulka hoostiisa galiyay qaraxii Shaam oo laga soo bilaabo kii hargeysa amaha kii soo kulli ku wada faraxsan ninkaas uu taqaana diinta inuu difaacayo mana aysan cambaareen fadwadiisi halkaasna waxay cadeynaysaa in raali ay ka yihiin waa koox isku xiran al-shabaab nimanka jooga filla Soomaaliya iyo al-Ictisaam ummadda Soomaaliyeed iska difaacana ugu baaqayna wassalatu thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.